اوكي بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Khalid Maxamed Ismaaciil Barasare multimedia profession runtii waxaan maanta rabaa inaan ka warbixiyo fiilkan multimedia runtii waa fiil cusub oo kamid ahaa hore uga mid ahaa ICT-ga ama computer science-ga waana runtii kii kaliya tay qurxinayay hadda se baahi awgeed oo timiday runtii oo caalamka timiday loo baahday in as a profession lagu takhasuso runtii dalkeena waxa looga baahan yahay siyaabo kala duwan hadii event dhacayo kala ay tahay haday tahay business advertisement-ka oo ku baxaya audio haday tahay mid ku baxaya tagas haday tahay mid ku baxaya graphic haday tahay mid ku baxaya video sidoo kale waxa looga baahan yahay qoleenka sameynaya ama industries ka shaqeeya sameynta filimada waxa kale looga baahan runtii dhinaca kale inuu ka caawiyo mass media ama saxaafadda laftirkooda aad u muhiima runtii ardayga gelaya waxa looga baahan yahay arday waxa hawlaha u diyaar ah in ardayga runtii raba in barnaamijkan ama kulliyadda multimedia galo runtii waa in marka hore aqoontiisu language ku dhisan tahay oo waxa ka hor imanaya tools badan ama application badan oo English leh secondly waxa looga doonayaa qofkaasi inuu dhiirigelin uu haysto ama concept-ka haysto computer-ka sidoo kale wax sawirada waa inuu yaqaan noocyadka kala duwan ee 3D-ga ama 2D-ga games-ka haduu ku soo ciyaaray waa kala garan karaa because of waxa ka hor imanaya inuu sameeyo games 2D ama 3D ama 4D waa inuu concept-ka haystaa runtii waxa la doonayaa qof waxoogaa jaraa'id concept ku soo shaqeeyay editor ha laftarkiisa uu ka faa'iideysan karaa qof reporter ha saxafi warar soo diray runtii carqalada kaga yimaada hadaanu concept ka haysan noocan device-ka adeegsanayo uu ku duubayo warka ku diyaarinay hadaanu sida loo isticmaalayo iyo sida daatada loo isticmaalayo hadaanu aqoon laftarkiisa waa ka faa'iideysan karaa qof kasta interested ku ah painting-ka wax sawirada waxa uu rogi karaa digital artist inuu noqdo sida Amin artist iyo wixii la mid ah waxyaalaha kala duwan baa laga runtii waxa fiilkan ka faa'iideysan kara dadka ku shaqeeya photographerska ama sawir qaadayaasha oo runtii uu ka caawinayo waxa kale oo kamid ah dadka ka shaqeeya saxaafadda gaar ahaan kuwa videoska ama website-yada videoyada galiya runtii editing-kooga waxay duubeen ku sameyn karaa wax ka faa'iideysan kara dadka ka shaqeeya ama raba inay u shaqo tagaan radioska idaacadaha runtii codadkii la duubay ay wax ka bedeli karaan shucaaca ka saari karaan effect iyo say doonaba u gali karaan runtii ay u dhigayaan waxa kale oo runtii ka faa'iideysan kara shirkadaha daabacadaha dadka u shaqo tagay ama ka shaqeeya oo runtii waxay soo saarayaan si cilmiyeysan runtii uga faa'iideysan kara inay u bartaan aqoonteeda waxa kale oo kamid ah shirkadaha wax soo saarka la dharka soo saara runtii designada ay dharka soo saareen laftarkooda waxa la doonayaa qof multimedia takhasuskooda u leh inuu noqdo runtii waxyaalaha soo laftar jaraa'idka soo lamida magazine-ka runtii dadka soo saaray iyada laftarkooda waa dad aqoon u leh multimedia ayaa looga baahan yahay ka qayb qaato shaqooyinkaasi runtii marka la dhigto ama ujeedka kulliyadani multimedia waa inay soo saaraan arday aqoon ama si cilmiyeysan u soo saari kara fikrad xayasiis oo business oo ganacsi oo ku soo baxaya cod ku soo baxaya text ku soo baxaya graphic ku soo baxaya video sidoo kale waxa la doonayaa inuu noqon karo qof ka taliya ama direct gareeya sameynta filimada soo saaridda shirkadaha products-ka soo saara in design-ka u sameeyo sidoo kale inuu la shaqeeyo telefishinada radioska iyo wixii la mid ah runtii marka loo eego professionka gaarka ee noqon kara waxa kamid ah photographer waxa kamid ah videographer ama audio editor waxa kamid ah sidoo kale inuu website designer inuu yahay copywriter inuu yahay screenwriter inuu yahay arts designer inuu ama digital designer inuu yahay inuu film director noqon karo waxa kale oo kamid ah inuu qofku ka shaqeyn karo goobo kala duwan hadii dalkeena aanu soo noqono shirkadaha daabacadaha ka shaqeeya waa waxyaalaha kaliya ay ku shaqeeyaan waa dadka professional multimedia oo haysta haday telefishinada waa sidoo kale runtii fiilkani waa fiil muhiim ku ah dunidan aan maanta joognay teknolojiyadan iyo aqoontan iyo ganacsigan socda aad buu muhiim u yahay waana laga maarmaan waxa kale oo runtii ardaygu haduu dhameeyo uu qaadan karaa master's degree oo la taxalluqa animator-ka master of animator of multimedia waxa kale oo qaadan karaa film maker of multimedia runtii research badan buu ka sameyn karaa حتى PhD بو كغاري كرا waxa uu soo saari karaa digital media oo philosopher uu ka gaari karo doctorate waxa kale kamid ah film making and animation
oo heer research ah uu ka gaari karo PhD runtii waxa kamid ah video ama virtual reality-ga software-sa runtii intuu ku guda jiro barashada multimedia waxa uu qaadanaya applications kala duwan ama teams kala duwan ama aan iraahdo software kala duwan oo runtii waxyaalaha aan sheegnay ka caawinaya oo ilaa xada runtii waa qayb la xaalay ayuu marka hore ka ahaa ICT-ga ama computer science-ka waxaan kula talin lahaa ardaydu wixii ka shaqeynaya profession-kan hore soo sheegay inay gali karaan oo sida markaa ku aamini karaan oo tahay profession ku cusub casrigan maanta la marayo digitalka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.